أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن آدي آدو السلام يا ولالها قالك أكو حنا شنك ولا شوت فردوس ثاني شنك وشنكيني وشنكيني وشنك أمة الصومالية وولاشي فردوس ثاني ومرك ليدن لها تدي عافي ما ضبطنا نوان عافي ما ضبا وحن إلهي وبرينا أنت حنون صنصا إنه حنونك كتل قادو أنت دبعتي سن دبعتها كتل قادو أنت مروجي سن مروجتك كتل قادو انت جيلاشا ku jirta ilaahay uu jeelasha ka saaro inta awlaad doonaysa awlaad baariya ilaahay siiyo inta hanti iyo wax doonaysa na ilaahay uu ka qaado kurbada iyo deentana ka bixiyo waa mar kale ay isku soo noqo dambe oo xiiso leh waxaan maanta ka hadli doonaa insha Allah biidnillah barnaamijka waxaanu kaga hadli doonaa siyaabo kala duwan ayaaba dadka waxa ku soo faafiyeen baraha bulshada fiidiyogaasina waa fiidiyo maama Khadiija laga soo duubay wasiirada maama Khadiija inta aanan commentigeena ama aanan ka bixisanin aragtideena ama afkaarteena بلاين سلا أجنو لعب يا عزيزك كبودا مرضو إن شاء الله وكنتي ذا ونما وكنتي ذا عادي دا استاكي ها إلا استاكي ذا رواصات استاكي ديس ساسا يسو sidaad arkaysaan waa fiidiyogaas ummadii uu ka argagaxiyay hadaba dadku waxay u kala qaadeen laba siyaabood qaar waxay leeyihiin waanay dhalin qaar waxay leeyihiin maxaa sida loo yiri laakiin أنا وكان حيرونتي المير أو صقير أو سبية إن لبضة قعمود إنت لقى حلو إن يدو إلا ما هرت المها يرانو أنا ذي كده بقى أنت أنا أوجين إن دور بلاد كهر أما سنة دور سنة كهر إلى لبض سنة مية هاي سنة دي بار كهر أيابا وحلا صور دقي ميل دبد ده مركي لصور دقي إن waxa arkay wiilal iyo gabadh ayaa wada socday ilmi yara banaanka lagu soo tuuray way arkeen marka ilmi yara arkeen waxay tiri waxa aan doonay wiilku wuxuu waxaan ka baqay reerkaygu inuu ku dumo oo matalan reerka waxay ka baqday inuu inuu gabadha ku yiraahdo ninka gabadhiisu inay ka masayrto oo tiraado war waxa hanoola iman intaad banaanada ku soo dhashay oo adigu dhashay baad rabtaa inaad anaga inoo keento marka gabadhu la socotay buu ku adiga ayaaba madax banaan marka garoob ay ahayd gabadhu saddex caruur leh adiga madax banaan waxa aan rabaa in aad ilmaha yar ilaahay ay nagu dhawaano oo anaguna kugu ogaano islaamkuna kugu ogaadaan aynan cilada kaga tagin ilmaha dhinacan ayaaba bahal baa ka cunay hooyadii dhashay baana banaanka soo dhigtay maama Khadiija waa soo qaaday markii ay soo gabadhii waa soo qaaday gabadhii markii ay soo qaaday waxa ay samaysay inantii in doore haysay adigu muddo dhowr bilooda ilaa 9 bilood 10 bilood 11 ma garanayo adigu muddo sanad gaadhaysay inantii haysay inantii waxay aragtay inaanay kafaale qaadi karin ilmahan yar aanay kafaale qaadi karin hawshiisa saddex caruur oo single mother nimo ay ku korinaysay way haysatay waxay tiri maanta hadaad ilmaha yar qaadato oo ilmaha yar aad qaado bila ilmaha yar wax barasho yeelanaya mustaqbal buu yeelanaya wax buu rabaa aniga culays bay igu tahay ninna ima biilinayo cid kale oo waxay ka soo galaysaa ma jirto meediyahay soo bandhigtay markay meediyihii soo bandhigtay maama Khadiija ayaaba waxay tiri ana qaadanaya ana ilmaha yar qaadanaya ilmahaas ana qaadanaya way qaadatay ma sha Allah tabaaraka Allah jazakallahu khayr wixii wanaagad u samaysay way qaadatay mudday haysatay ilmi yara xilligii malaade xagga istaaga ayaa dhibay anigu dadku waxay leeyihiin way ilma aanay dhalin saasay u galaysaa wacaynkaas ogaan bay u tahay horta ogaan haday ka tahay video may soo duubteen waa marka koobaad
marka labaad waxaan iyada dee waxaan u malaynayaa videogan laba mid buu noqon karaa inagu ma ogin mar walba laakiin waxaynu social media ka aragno inaynu si positive uga hadalno laba arrimood labadaba way noqonaysaa arrin waxa weeyaan arrin waxa weeyaan in videoga lagu xaday taa way noqon kartaa qodobka labaad ee kale oo dee laga duubay oo dee sharafteedii waxeeda la rabo qodobka labaadna in iyadu iska duubtay oo dee ay soo gelisay baraha bulshadana way dhici kartaa qof kale inuu geliyana way dhici kartaa laakiin qaladka meesha ku jira waxa ay tahay waxa meesha laga sameynayay ma ogin oo dee waa tan la leeyahay ilmi yaraabay gumaysanaysaa ilmi yaraabay dilaysaa inuu dhintay rabtaa laakiin ficilkan ina soo gaadhay waa ficil xun simbali waa ficil aad iyo aad u xun laba wax uu ku xun yahay labadaba horta ilmaha marka aad rabto haddii aad cilaashin ay kaa tahay arrinkani oo ay cilaashin kaa tahay maamo waxaa la geeyaa physiotherapy iyo meelahaas adigu gurigaaga marnaba ilmo yar oo mas-uuliyadiisii aad tir anigaa qaaday aniga ayaabaa qaaday mas-uuliyadiisii inaad sidaa u gasho waa xaraam calayk inaad saa u gasho waa xaaraam laba midba way kuu eekayd haddii uu dhanka caafimaadka iyo wixii iyo istaaggii iyo waxaasi ay dhibaayaan adigu dhakhtar ma tihid adigu dhakhtarad ma tihid haddaad tiraahdo wax walba anaa aqaana wax walba anaa fahmaayo horta dee waxaad ku dhacaysaa af libaax ayaabaad ku dhacaysaa dhakhtarro inaad la kaashato oo aad arrinkan aad dhakhtarro intaad la kaashato arrinkan dee istaaggiisa iyo hawlihiisa inaad dhakhtarro la kaashatay laakiin qalad bay ahayd intaad halkaas sidii qof aanad dhalin oo ayaa markiiba la eegay hadda waxaa la wada leeyahay waana dhalin waana la ogyahay inaanad dhalin waa la ogyay intaad ilmaha sidaa u gasho haddana video xitaa haddaad wax u taraysay oo aad islahayd ha kaco haddaad islahayd meel ha aado haddaad islahayd si fiican ha u kaco haddaad islahayd wax kasta haddaad islahayd wixii aad islahaydba waata waa la buriyey maanta waxaa social media imanayana waa la sarifayaa waa la badinayaa adigu laba siyaabood labadaba way ku horta kow waxaad ku qaldanayd ilmaha yar inaad saa u ciqaabto waa xaraam calayk ilmaha yar haddiiba ilaahay uu ku baday ilaahay baa ku baday markaad tiri anaa kafaalaadihiisa qaadanaya haddaanad mas-uuliyadiisa qaadanaynin ilaa dadka waaweyn aan waxaana ladamid qofka mas-uuliyadiisa ma qaadi karo sababta aanaa nafteydan ogahay marka inaad naftaada inaad tiraahdo ilma aan kacaynin dhib buu igu yahay oo aad sidii lagugu kaasoo bandhigay aad ugu bandhigta dadka ood qof kaloo qaadanayo oo ilaahay ugu naxariis ka raadinayaa jiri kara laakiin intaad labadii gacmood ka xidhay aad leedahay qasab baan ku istaajinayaa dhakhtar ma tihid cilaash ma tihid haddii arrin cilaash u baahan yahay cilaash iyo dad wadaadaabaa jira maad geysid haddii dhakhtar wuu u baahan yahay dhakhtar maad geysid intaad qol u xidhatay ood video ka duubtay haddi qasab ood labadii gacmoodna saa aad u bahalaysatay maanta haddaad joogi lahayd dhul qurbo ah amaba meel aad joogi lahayd waxaan ogahay in lagaa qaadan lahaa adigana maxkamad lagu saari lahaa hadda waxa aan leeyahay dadka maanta videoga ka duubay maama Khadiija waxa aan leeyahay ilmaha yar iyo gabadha ha loo kurgalo ilmaha yar wuxuu qabay ilaahay baa og war anigu mid kalena waan ku dardaarmayaa awlaada guryihiina joogta hadday idinku dhibbataan sidaa ha u galina canaano ku yara qayli laakiin sida ayaan loo galin waa xaraam calayk qalbiga ay xanuunay wallaahi billaahi waxaad imoodaysa inaan dul taaganahay qalbigaasaa ii jareeyay aad baan uga xanuunsaday aad baan u naxay marka awlaada guryihiina joogtaa waa idinku ammaano waan arkay dumar badanoo qaar baa waxaan ku yidhi haddaydan awoodaynin qofkii kuu keenay maa tiraahdi markaasay igu tiri shilimo lacag yarba malaa lagu siiya lacagtaas ayay ka baqaysaa inuu ka go'do bal ka sheeke yoom alqiyaamahana su-aal baa kaa hor taallo kaa horeysa su-aal baa lagu weydiinayaa su-aal ayaabaa lagu weydiinayaa marka waxay igu tiri maxaa iga galay aniga lacag baan ku qaataaye lacagtaydaasaa iga go-ayse waa dembi waa xaaraan
khadiijo waa sheeko qisa laakiin khadiijo lacag kuma qaadato iyadaaba ku bixisa ما شاء الله تبارك الله وان أركي دد بدن أو أولاد أي بنان كسو قاتين سيدي بقروين كأونون قار وحان أركي أو دنبغي يد دنوبها إسكا إلالية إلا أمانة وحا أوغو كلون أمانة وحديدة بورها عير يلول بويتي دي بني آدم باقاضيك بني آدم وحكا كاني آدك والواي بوروها كعبادي أمانة دي عيركا كعبادي ملكي كعبادي بني آدم باقاضي ما قرأتي مركز شيء بني آدم كوحن وأولاد ده هديب إلهي إذا ما قال عنتصي في عن هذا الحن هاو بهالين إن هدباتين هدبين إن إلهي وقوله مر والبقف كم العقل وقوسينايو وحلا وقوسينا حكا مقلي هذيك إلهي وقوله وحاسي الدنيا ويودمانسا لكن مركز تبحث في عن النادي إلهي وقوله واتا waxaan leeyahay walaashina idinku leh war awlaadii amaanada hala ilaaliyo waxaan idinkaga tagaa walaashina oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu